kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo heshiis ku gaaray Baydhabo iyo warmurtiyeed ka soo baxay shirkii guddiga farsamada ee Baydhabo ka socday. Ra'iisul Wasaare Rooble oo ku dhawaaqay waran farxad gelinin mucaaradka iyo mudaharaadka Muqdisho. haddaba muxuu Ra'iisul Wasaare Rooble ka yiri banaanbax ay qorsheynayaan xubnaha mucaaradka? xog cusub oo sheegaysa in beesha caalamka ay soo faragelisay dibadbaxa la filayo inuu ka dhaco jimcaha magaalada Muqdisho. haddaba maxaa tilaabo ah oo ay qaadaysaa beesha caalamku? wararkeena kalena waxaa ka mid ah Allah u naxariistay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo geeriyooday iyo madaxweyne Farmaajo oo fariin ka soo saaray iyo markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay oo gacanta ku dhigay hub sharci darro ah oo u socday Soomaaliya. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. waana subax ee Arbacada 17 bisha 2 ee Febraayo sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane. fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. mahadsanidiin. aynu ku bilowno wararkeena. waxaa warmurtiyeed laga soo saaray shirkii ee guddiga farsamada ee Baydhabo iyadoo warmurtiyeedkaasina uu u muuqdo mid markaasi muhiim u ah arrimaha doorashooyinka dalka. shirkii guddiga farsamada ee arrimaha doorashada federaalka ee ku qabsoomay magaalada Baydhabo kaasi oo yeesheen wakiilo kala matalayay dawladda federaalka, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa heshiis buuxda lagu gaaray. waxaana laga soo saaray warmurtiyeedkan. waxa uu noo qornaa warmurtiyeedka sida tan: shirka guddiga farsamada arrimaha doorashada federaalka ee ku qabsoomay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar kuwa Koonfur Galbeed 10 ilaa 16 February 2021 waxa uu ku soo dhamaaday guul. guddiga oo markaasi ka duulaya ayaa lagu yiri qoraalka mabaadi'da asaasiga ah ee wadar ogol iyo isu tanaasul, isqancin iyo istixgelin la isku tixgelinayo xaaladda dalka ayaa si qoto dheer uga dooday qodobada caqabada ku ahaa fulinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo duruufaha ku xiran qabsoomidda doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya. guddigu waxa uu si gaar ah diiradda u saaray dhiirigelinta iyo dhirinta farsamada iyo xal u helidda qodobadan caqabadu ay ka taagneed. cabashada laga muujiyay in qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka aysan waafaqsaneyn habraacyada iyo shuruudaha xubinnimo ee guddiga doorashooyinka ee lagu qeexay heshiiskii 17 Sebtembar 2020, gaar ahaan inay ku jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka ah iyo hay-adaha amniga. xal u helidda guddiga doorashada kuraasta Somaliland, xaaladda gobolka Gado oo la xaliyay, adkeynta qoondada haweenka iyo jadwalka qabsoomidda doorashada. guddigu waxa ay xal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobadaas ee kor ku xusan, waxayna madaxda golaha ee markaasi wadatashiga qaran u gudbiyeen soo jeedinta guddiga si ay u meelmariyaan. sidoo kale guddiga farsamada arrimaha doorashadu waxay ugu baaqeen madaxda golaha ee wadatashiga qaran in ay shir isugu yimaadaan 18 February 2021. guddigu waxa uu u mahad celinayaa madaxweynaha ee dawladda iyo waliba sidoo kale shacabka reer Koonfur Galbeed soo dhaweynta iyo martigelinta guddiga farsamada. guddigu waxay sidoo kale u mahad celinayaan beesha caalamka oo dadaalka joogtada ah ugu jirta sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhayahay. inkastoo guddigan heshiiska markaasi sheegay isla marhaantan warmurtiyeedkan soo saaray uusan sheegin sida arinta gobolka Gado iyo guddiyada iyo dhammaan caqabadaha la xaliyay heshiiska looga gaaray iyo cid tanaasul ka sameysay, haddana waxa uu sheegay in arrimahaasi oo dhan xal laga gaaray. sidoo kale guddigan ma uusan sheegin halka lagu qabanayo shirka ay shaaciyeen in 18 February oo markaasi berri ku beegan in uu u qabsoomayo madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka, iyo waliba sidoo kale halka shirkaasi uu sida rasmiga ah uga dhacayo maadaama shirkii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isagu markaasi baaqday isla mar ahaantaana ay war ka soo saareen madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland kuwaasi oo ku saabsan in marka hore aan loogala tashanin Puntland in shirka ay iyadu martigeliso.
qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay war aan farxad gelinin markaasi mucaaradka oo ku saabsan dibadbaxyada Muqdisho. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digay qatarta cudurka coronavirus ama COVID-19 oo mar kale soo laba kacleeyay. ra'iisul wasaare Rooble oo fariin u diray shacabka Soomaaliyeed ayaa yiri fariintaydu waxay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan. waxaan idinkaga codsanayaa in aad taxadar u muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakamaynta iyo ka hortagga cudurkan halista ah ee COVID-19. arrintan ayaa markaasi waxaa loo fasirtay in ra'iisul wasaaruhu uu si dadban uga hadlay qorshaha ay markaasi iyagu mucaaradka ku doonayaan in ay dibadbax uga dhigaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyada oo markaasi murashaxiinta mucaaradku ay dibadbax ballaaran ee ka qorsheynayaan magaalada Muqdisho maalinta Jimcaha ee soo aadanaya. ra'iisul wasaaraha xilka sii haya waxa uu shacabka u diray digniin xooggan oo ku aadan kulamada waaweyn. Rooble qoraalkiisa waxa uu ku sheegay in qatarta cudurka coronavirus uu mar kale soo laba kacleeyay. ra'iisul Rooble ayaa aad uga digay in dadka Soomaaliyeed sameeyaan isku soo baxyo xilli Jimcaha soo socda ee loo ballansan yahay banaanbax ay iclaamiyeen golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya. madaxda waqtigu ka dhamaaday ee dowladda federaalka ah ayaa la aaminsan yahay in ay samayn doonaan qorshe kasta oo ay markaasi uga hortagi karaan dibadbaxyada ay markaas iyagu qorsheynayaan xubnaha mucaaradka ah in ay ka dhigaan magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii ay iclaamiyeen banaanbax weyn oo qabsoomaya maalinta Jimcaha ah. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya isla markaana qayb ka murashaxiinta mucaaradka ah ee markaasi madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xubnaha beesha caalamka ay soo fargeliyeen banaanbaxa la filayo in maalinta Jimcaha uu ka dhaco magaalada Muqdisho. wararka aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in beesha caalamka ay iyagu la hadleen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo hogaamiyayaal ay xubnaha beesha caalamka isla markaana ay ka dalbadeen in ay yeeshaan kulan fogaan arag ah oo ku saabsan xaaladda dalka. waxaana la filayaa in dhowaan uu dhaco kulan gaar ah oo mucaaradka iyo beesha caalamka isla markaana looga wada hadlayo banaanbaxa ay beesha caalamka dalbatay in markaasi la joojiyo, ayuu yiri xildhibaan ka tirsan mucaaradka oo warbaahinta markaasi la hadlay. wakiilada beesha caalamka ayaa ka walaacsan xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan banaanbaxyada la filayo in ay markaasi dhacaan, waxayna qabaan aragti ah in dalka ay gelin karaan fawdo iyo qalqal amni. cabsida ugu weyn ayaa ah inay isku dhacaan ciidanka dowladda iyo dibadbaxayaasha kadibna uu horseedo kacdoon shacab oo kadib isku bedeli kara dagaal sida ay qabaan xubnaha beesha caalamka. golaha midowga murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay in ay qaban doonaan banaanbax looga soo horjeedo inuu kursiga sii fadhiyo madaxweynaha uu muddaxileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, laguna dalbanayo in markaasi la qabto doorasho xor iyo xalaala sida ay markaasi hadalka u dhigeen, amaba ay qabaan xubnaha mucaaradka ah ee iyagu doonaya in dalka ay doorasho ka dhacdo maadaama weli aan heshiis laga gaarin sidii uu u qabsoomi lahaa shirka amaba doorashada dalka ka dhacaysa sanadka 2021 oo weli wax heshiisa aan laga gaarin. madaxweynaha Soomaaliyana muddaxileedkiisii uu markaasi dhammaaday. dhanka kalena Allah u naxariiste waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday sheekhi caanka ahaa ee Sheekh Nuur Baaruud Gurxan, waxaana geeridiisa ka tacsiideeyay Allah u naxariiste madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu markaasi qoraal ka soo saaray geerida Allah u naxariiste Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ugu caansan ee xagga diinta. sheekha ayaa lagu soo waramayaa in uu isagu markaasi xalay Muqdisho ku geeriyooday, waxaana uu ka mid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaana xaqiijiyay geerida Allah u naxariistay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. wararku waxay sheegayaan in sheekhu uu geeriyooday cudurka COVID-19 oo dhowaan soo ritay, inkastoo aan markaasi si rasmi ah loo xaqiijin.
madaxweynaha oo tacsi tiiraayale u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistay. Sheekh Nuur Baaruud ayaa tilmaamay doorka wanaagsan ee uu markaasi marxuumka ka qaatay arrimaha dacwadda islaamka, barbaarinta iyo baraarujinta shacabka Soomaaliyeed. Waxa uu madaxweynuhu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan u tacsiyeenayaa qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Sheekh Nuur Baaruud Gurxan. Marxuumku waxa uu ka mid ahaa tiirarka culimada Soomaaliyeed ee waqtigooda iyo noloshoodaba u hibeeyay faafinta diinta, baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dalka ayaa marxuumka Alle uga baryay in uu hooygiisa ka yeelo jannatul firdawsa, samir iyo iimaan uu ka siiyo qoyskii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay. Allah u naxariistay marxuum Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo isagu xalayto magaalada Muqdisho ku geeriyooday. ugu dambeyntiina markab dagaal oo Mareykanku leeyahay ayaa la sheegayaa in uu xeebaha Soomaaliya ku qabtay doon hubsiday. hubkan oo markaasi la sheegay inuu ka koobnaa qoryaha fudfudud iyo weliba sidoo kale qoryo culus oo ay ka mid yihiin qoriga loo yaqaan RPG, BKM iyo weliba sidoo kale AK47 ayaa waxaa qabtay markab dagaal oo laga leeyahay dalka Mareykanka. Inkasta uusan si rasmi ah u sheegin hubkan halka bartilmaameedkiisu ahaa iyo halka laga leeyahay iyo cidda uu u socday, haddana waxa uu sheegay in xeebaha Soomaaliya uu ka qabtay hubkaasi oo markaasi la fahamsan yahay amaba la rumaysan yahay in uu ku wajahnaa Soomaaliya. qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena. Tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.